السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبين نمو وناكسنا خيارتنا داون لسا ميلك شدكو تكتان ضعفاء عالم كسور دوادا وروحنا عالم كيدي كهيني يوتيوب كينان بدي يبري channel ورركا عاوان دين هينو مريكنكا يبري قدحة ورركا أفريقيا إيشيا يوروب هدان كو هرية ورركا مريكن مراكيب تدقال كيان مريكنكا USS أبراهام ليكول أيا قلبيا هوس يمادا سنتكم iyadoo ay sii kordhayaan xiisadaha u dhexeeya Mareykanka iyo Iran. Khubaro dhinaca amniga ah ayaa ka digay in Iran adeegsan karto weeraro loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska si ay u bartilmaameedsadaan maraakiibta dagaalka ee Mareykanka. Dhanka kale, Washington ayaa xoojisay joogitaankeeda military si ay uga hortagto khatar kasta oo ka iman karta gobolka Bariga Dhexe, isla markaana ay u difaacdo danaha iyo saaxiibada Mareykanka ee gobolka. Sidoo kale, Mareykanka iyo dagaalka Ukraine iyo Ruushka, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in Ukraine ay tahay inay saxiixdo heshiis nabadeed ay ku jiraan dhammaan amni si ay u hesho taageero amni oo Mareykanka ka timaada. halka wadahadallada nabadeed ee u dhexeeya qorshaha inay sii socdaan Mareykanka iyo Ukraine. Wararka ka imaanaya Yurub, heshiis ganacsi oo taariikhi ah, midowga Yurub EU iyo India ayaa gaaray heshiis ganacsi oo ballaaran kaasoo lagu yareeyay Motor of All Deals, kaasoo abuuri doona suuq ka kooban 2 bilyan oo qof ku jiraan heshiis dhaqaale cusub. Sidoo kale, xiisado siyaasadeed oo NATO la xidhiidha waxaa jira kala duwanaansho siyaasadeed oo ka dhex jira qaar ka mid ah hogaamiyaasha Yurub iyo Mareykanka, gaar ahaan arrimaha amniga iyo siyaasadda iyo difaaca. Dhanka kale, wararka ka imaanaya Afrika, roobab fatahaado wata ayaa sababay dhimasho iyo burbur qaar ka mid ah dalalka Afrika ee koonfurta sida Mozambique, South Africa iyo Zimbabwe ayaa wajahaya fatahaado culus oo sababay dhimasho iyo burbur xooggan. Sidoo kale, wararka ka imaanaya Soomaaliya, ciidamada Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay burcad hubeysan oo isbaaro sharci darro ah u dhigatay gawaadhida xamuulka ah ee u kala goosha Shabeellada Dhexe iyo Muqdisho. Burcadda la qabtay ayaa loo gudbin doonaa maxkamadaha iyo hay'adaha garsoorka ee ku shaqada leh si sharciga loo waafajiyo. Mas'uuliyiintii amniga ayaa si adag uga digay falalka burcadnimada ee lagu dhibaateeyo musaafiriinta iyo ganacsiga, iyaga oo sheegay in ciddii ay ku cadaato falalkaasi ay wajihi doonaan caqabado iyo xadhig. Richard Peter Pham, oo hore u soo noqday safiir iyo ergey gaar ah oo dowladda Mareykanka u qaabilsanaa gobolka Sahel iyo harooyinka weyn ee Afrika, ayaa si jees ah uga falceliyay war-saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya. Isagoo qoraalka ku daabacay bartiisa Twitter-ka, Richard Pham wuxuu ku tilmaamay war-saxaafadeedkaasi mid u eg qirasho dadban oo la xidhiidha musuqmaasuqa, gaar ahaan ku tarkifalka gargaarka cunto ay bixisay Hay'adda Cuntada Adduunka WFP, kaasoo ay maalgeliyeen cashuur bixiyaasha Mareykanka. Hadalkan ayaa si toos ah u dhaleecaynaya eedeymaha la xidhiidha ku takrifalka gargaarka bini'aadanimo iyo isla xisaabtan la'aanta hay'adaha maamula ee dowladda Soomaaliya. Dhanka kale, Soomaaliya ayaa bari waxay ku kulmayaan baarlamaanka, madaxweynaha iyo xubno fara badan oo mucaarad nooc walba leh. Baarlamaanka, madaxweynuhu wuxuu leeyahay waxaan ka bedelayaa qodobaan bedelaya balleer daawada saaxiibkiin baa falaqeynaya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud go'aankiisa wuu cad yahay. dastuurka wax waa ka bedelaa ay taagan yahay. yeela mise diida, mucaaradkii cid walbaba wuu hanjabooyaa. waxay u eg tahay madaxweynaha inuu wadanka asaga sii joogi doono. waxa u hartay 108 bari, laakiin biri baarlamaanka 11aad waliba madaxweynaha wuxuu taagan yahay cutubka 5aad
ee cutubka sagaalaad wax ka bedela ku sameynaa runta inaha ka saaray waxyaabaha ilaa hadda inaha lagu hayo waxaa qayb ka mid ah in safkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay meesha ka wada baxeen gudoomiye ku-xigeenkii ninkii dastuurka qaabilsanaay iyo guddigii dastuurka shaqeynayay waxaa la dhahay dastuurkan waa lagu murusan yahay safkii madaxweynaha way ka baxeen waxay dhaheen dastuur lagu murusan yahay ma ka shaqeyneyno gudoomiye ku-xigeenkii iyo dhammaan ay xubnihii ka shaqeynaya dastuurka waxyaabaha kale isweydiina waxaa kaloo ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud 3 maamul goboleed u hartay oo kala ah koonfur galbeed hirshabeelle iyo sidoo kale galmudug saddexdooda gudiye ka socda waxay sheegeen xataa inaysan rabin dastuurka lagu murusan yahay in wax laga bedelo Soomaaliya xalkeedu wuxuu noqon doonaa ee u eg tahay teendhada in lagu laabto mise madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne xoog ku sii ahaado hadduu sii ahaadana wadanka inuu madaxweyne kala yeeshto hadduu madaxweyne wadanka kala yeeshto inuu sidoo kale qalalaasay inay wadanka ka dhaco hadduu madaxweyne xal keeni waayo xalka laga rabo madaxweynaha inuu keeno 108 bari oo hartay waxa waaye laga rabo loo badinayo in teendhada lagu laabo doono mise doorasho nooc kale wadanka inuu keeni doono sidoo kale Soomaaliya iyo Soomaaliya waa laba dal oo kala duwan ayuu yiri Andrew Michel wasiirkii hore horumarinta caalamiga ah ee Ingiriiska wuxuu sheegay in markii uu booqday Muqdisho uu arkay burbur aad u ballaaran isagoo xusay in xitaa xilliga wada hadallada kula jiray madaxweynaha Soomaaliya ee filla Soomaaliya daaqadaha laga soo riday hub culus dhanka kale Michel wuxuu tilmaamay in markii uu joogay Hargeysa uu arkay xasilooni iyo nidaam dimuqraadiyadeed xitaa uu raacay bas dadweyne taas oo ku muujiyay in Somaliland ay ka duwan tahay Soomaaliya sidoo kale arrimaha Somaliland Taiwan iyo Somaliland dawladda Taiwan ayaa lagu wadaa inay sanadkan 2026 bilowdo qodista shidaalka Somaliland heshiis ay hore u wada galeen Somaliland iyo Taiwan ayaa haatan galay marxaladii hirgelinta iyadoo Somaliland lagu tilmaamay dal hodan ku ah kheyraadka dabiiciga ah oo weli si buuxda loo sahamin dhanka kale wararka naga soo gaadhaya Djibouti xaalad cabsi leh ayaa laga soo sheegaya wadanka Djibouti kadib markii warbaahinta Itoobiya laga leeyahay ee Sabiha ay sheegtay suurtagalnimada isku day afgambi warbixintu waxay sheegtay in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geel uu helay xog la xiriirta qorshe afgambi oo ay ku lug leeyihiin xogaga gudaha iyo dibadda iyadoo la sheegay in xaaladdu u eg tahay afgambiyadii ka dhacay dalalka sida Mali daawadayaal war waxaan caawidin hayno war naga inta tan iyo intaan dib u kulmayno habeenimo wanaagsan channelka subscribe share comment please kor u qaada baalka hoos buu sii socdaa bye guys waa idin sugaynaa kor u qaada baalka